15 bisha Juun 6 kadib waxaa madlan gobol uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u fidiyay madaxdii hore ee dalka. madaxweynuhu waxa uu iclaamiyay shir wada tashi ah oo 4 waji ah sida lagu faafiyay qoraal ka yimid dhinaca dowladda federaalka ah. wajiga koowaad wuxuu madaxweynuhu la kulmay ururada bulshada rayidka ah. wajiga labaad wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la kulmay ururada diiwaangashan ee siyaasadda. wajiga saddexaad waa shirka lagu balansan yahay in uu dhaco 15 bisha Juun ee u dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo madaxdii hore ee dalka. halka wajiga afaraad uu 22 bisha Juun uu madaxweynaha la kulmi doono madaxda maamul goboleedyada. kadibna waxaa la gaari doonaa go'aamo la xiriira doorashada iyo dastuurka dalka, waxaana loo gudbin doonaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. labada shir ee soo socota qabsoomidooda waxaa hor yaala dhowr su'aalood kuwaas oo aan haddii jawaabo xal ah loo helin sababi kara in ay baaqdaan ama ay la kulmaan ka soo qaybgal hoose. mucaaradka waxa ay rabaan in ay shirka 15 Juun uu noqdo wadaxaajo siyaasadeed oo xal u noqon kara xiisadaha siyaasiga ee u dhaxeeya iyaga iyo madaxweyne xasan sheekh. laakiin madaxweynuhu wuxuu gogosha ka dhigay mid wada tashi ah. halkan culeysyo wada tashi ah ayaa ka imaan karo maadaama aan nooca shirka la isku waafaqin. sidoo kale xubnaha mucaaradka ee la aqoonsan yahay waxa ay rabaan in ay wada hadlaan iyaga iyo xasan sheekh. laakiin madaxweynuhu waxa uu ballaariyay gogosha waxa uu ku soo daray xubno badan oo mucaarad aan ahayn oo aan kursiga ku haysanin. xasan sheekh wuxuu casuumaad u diray madaxweynayaashii hore ee dalka, ra'iisul wasaarayaal hore iyo ku-xigeenadoodii, halka gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka iyo ku-xigeenadoodii iyo hogaamiyaashii hore ee maamul goboleedyada. halkan iyadoo waxaa jira muran ku saabsan nooca dadka ka qaybgalaya shirka 15 Juun. shirka kale ee 22 Juun ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamulada ama sida loo yaqaano golaha wadatashiga qaranka, isna waxaa hortaala su'aal ah Axmed Madoobe ma ka qaybgali doonaa. inta la ogyahay madaxweyne xasan sheekh ma ogola Axmed Madoobe, taasina waxay keeni kartaa inuu siciidani qaadaco shirkaas isagoo dalbanaya in la keeno Axmed Madoobe. sidoo kale Puntland ma ogola kaalinta qaatumo heer federaal, waana caqabad kale iyagoona ay hortaalo shirka 22 bisha Juun, kuwaas oo iyagoona fashili kara shirkaas. madaxweyne xasan sheekh si ay uga dagaan culeysada saaran ee siyaasiga oo uu damiyo kacsanaanta beesha caalamka kuna abuuro xasilooni siyaasadeed, waa inuu aqbalaa wadaxaajo siyaasadeed oo dhab ah. waa inuu wadatashiga guud ku bedelaa wadaxaajo siyaasadeed. waa inuu la hadlaa dadka ay kuraas isku haystaan ee uu heshiiskoodu wax ka bedeli karo xaaladda maanta taagan. waqtiga waxa uu ku socdaa xasan sheekh maxamuud. haddaba sidee u aragtaa adiga?